runtii dee kacaanku markuu dhashay waagaa nasiib xumo waxaa jirta ma jirin social media kan iyo laakiin waxaanu ahayn intaanu iska digaxta ahayn waxaanu ahayn political activities dad muxuu ahaa nashaad oo xagga siyaasadda inkastoo dee aan mucaaradnimo furnayn oo la bareeri karinoo misena waxaanu ahayn dad muxuu ahaa xagga politically oriented ah oo baanu ahayn sidii baan ku gallay muxuu ahaa jaamacadihii ku gallay oo soo marray maalinta maad ka damaysaba waa la soo nacnacayay kacaanka maalmaad ka damaysaba kacaanka la soo inkastoo waxyaabo badan qabtay misena haddii intaa badan oo qaldamaysa baa ka badnayd oo waxaa ugu muhiimsan waxa weeye markii uu laalayba oo tuuray yani dastuurka waddanka oo yani noqotay maskaxda ku xukumaya arrintii noqotay de waa garan karta wax ka iman kara kacaankii markaas waddankii dhan uu noqday ama hees ammaana ama mid caashiq waddanka lagu sooxiyo ay noqotay marka waxaa dhacday inaanu noqonay dad xagga politicalka siyaasadda muxuu ahaa activist ku ah aniga rag kaleeto markaan la foole dhamaysanay isla dhexdeeda waxaa dhacday dee inqalabkii waqtuu fashilmay markuu fashilmay waxaan dhacay marka inaanu samayno urur hoose oo waddanka dadka kiciya oo muxuu ahaa kacan ka hor keena innagoo 10 baa ururka aasaasnay waxaanu ahayn ninka la yidhaahdo cabdulaahi xuseen sanweyne oo guddoomiye ahaa oo dadkii inaga horreeya annaga ahaa aniga maxamuud sheekh xaamid iyo maxamed cali xasan aalto oo saddexdaas iskood baanu ahayn waxaa kaloo nagu jiray gurub ahayn yani sanadkii naga dambeeyey ahaa daahir mire jibriil cabdicasiis jaamac nugaal axmed beriye raggaasuna waxay ahaayeen dadkii nagu xigay oo la foole aan isku soo gaaray iyagu bb bay ku soo galeen annaguna ardaynima marka hore ku gallay waxaa kaloo na weheliyey cabdicasiis gaacir oo isna wasaaradda maalda u shaqaynayay jaamac warsame cadde oo isna dhiganaya kulliyadda polytechnicalka iyo allah u naxariistay cabdiraxmaan maxamuud guri oo isna muxuu ahaa markaas 10kaas ayagaan ahayn xamar baanu kala qaybsannay markaa waxaanu qaybsanay qolaba xaafad aniga iyo maxamuud sheekh xaamid iyo aalto waxaan laga soo bilaabo banaadir secondary school la soo maro muxuu ahaa equatore la maro number 4 halkaa la maro loo leexdo xagga afisione iyo wadada loo leexdo ilaa raaga ugaas intaasaan lahayn waxaan samayn jiray markaa qalimo ah oily color oo meesha lagu qoro ayaan ka tirtirmayn oo kala midab ah haddii xataa caddaan blue haddaad wax ku qortid oo buluga la mariyo rinji buluga wuu qarsoomayaa marka si aynu qarsoomin sadarba waxbaan ka dhigi jiray midab ah mid bulu ah mid cagaara mid guduuda markuu ku adkaanaysaa ciddii rabta inaad tirtirto inay muxuu waxaan ku qori jiray erabyo ah kicinta dadweynaha ah iyo xumaanta kacaanka uu leeyahay iyo muxuu ahaa waddanka sida beenta lagu harqiyey cadaalad darrada ka jirta eexda ka jirta muxuu ahaa beenta laisku hafinayo waxtaan ku qori jiray waxaan warqadana waa qori jiray waa daadin jiray waxaan badanaa marka abaari jiray dugsiyada iyo meelaha la isugu yimaado si dadku u faafayo warkii waxaa laga yaabaa hal warqad meel ku qortay ama ku qortay in laga sameeyo riwaayad dhan maanta waxaa la soo maray halkaas waxa ku qoran kana ahaydo waxaan samayn aniga hadhow lagu sheekeeyaayo maanta taa dhacday anigu marka habeenkaan samayno si waxda ka seexan jiray ma seexan jiray waa ka lii jiray si aan warka u soo helo aanan noo ogaan inaan xalal soo jeednay marka saasaan ku jiray 79 dhan baan ku dhamaysanay hadba markay xogaa eedanto week la qaboobo baan daadin jiray nasiib darro waxay ahayd dadka la qabto reer baa loo aaneyn jiray majarteen baa loo aaneyn jiray waxa dadka ugu badan marka loo qaban jiray ama arday ha ahaado ama macallin ha ahaado waxay ahaayeen majarteen inkastoo dad majarteen ahayna la qabtay oo la xiray oo la cadibay oo nin waxaan garanayaa muxuu ahaa macallin ahaan jiray oo bursada ahayo la qabtay oo waxaan loo qabtay iska cadinaysa iska cadayd marka saasaan ku soo wadnay marka waxaan isku marka aaminsanay in gudaha laga kaco laakiin waxaan argay Soomaaliya diyaar ahayn isla marka waxa dhacday in ragayagii nin laga qabtay rag kale oo ku jirina la qabtay jaamac warsam cadana uu sigtay in la qabto laakiin uu ka baxsaday oo fikaday markuu fikaday raggii la dhiganayay boltekada oo maxamed sama gootaale iyo maxamed cabdi caynab iyo baa la xiray anaga markii qabtay ninkii guddoomiyaha noo ahaa waxaan go'aansanay inaan baxsano
waayo ogeyn hadee waa la isdilayay naxariis ma jirin markaasaan go'aansan inaan baxsano sidaasaan ku baxsanay oo waxaan ku aanay March 11keedii baan xamar aniga maxamed sheekh xaamid iyo ninka la yiraahdo محمد علي حسن ألتو يو نور الله نحرسته يا عبد القادر سعيد نور نحر يعني كانوا توصلنا لديت الله نحرسته بار على حرارة الأورنجري لحدي داس ما بحثنا شو هذا مركز حب الهيد وذلك أما سراكيشة أما جامعين تا سي أو لقب بقى الغبطه عد بالو صدري جري أنا مركز عن رأس صدري سعيد داري أنا رأس صدري سيح مرة سوق حي ودليقان نوعها مركز المريني متبان بدي أرضي كراعين بس كان صورنا عنه بس الوقوية ما تبان ولا كراعي بانو نميت الوقوية وعيله وراء مجرتينك ورواجه جوسينتي وخاين وضنكي وكل ما قصاصها وصا مجرتك كراعي أنا قلت روحي أفكار بدلنا الوقوية بس كده كينايو وكل ديار ده حودي مجرتين نقول حكاها جاي مجرت واحدة ليه أنا كنت أصعنا واربعة عكرتوني من جرتنا ما حبشوا لي بنيسا ديار لي بنيسا لا أنا قلنا من سؤالي ميودي بنيسا واحد عقلي ما أذوق بركنين في برعاب أنا قلت رايو وحيدي أنتوا صاروا أجيب حي والله اللي حبصار اللي حبانو والله اللي حبصار بساتينتيا وين قارق اللي تشوتيا قرعل أنا واقف بقى مرك اللي حلو ولا شيء اللي حبانو سعيد أنا مرك نقدر حبانو ودي de feebelgel sheegay waana qurceel markaan soo gaarin baa diyaardi qurceel la garaacday markaas iyadoo baxsada oo dib u noqonaysa baan soo dulmartay bas waan ka degnay waan kala dhuumanay adoo shakada gabar barka ku aamustay bas waan soo foolay meesha ka bilaabatay qurceel oo askartii kala carartay baan ku soo beeganay nasi wanaag ma aanan istaagin ninkii uu qaylinaya reer burca wuxuu leeyahay war basaasiinta ana qaban ana qaana hal joojiyo waa inuu sumar la joojiyo inta aan dhusra rab gaarin baa gabar reer waqooyi ilaahay dambiga ta dhaafay wayna deeq la oran jiray baa waxaan maqalaa ninkii dharbax ku dhacay waa labada dad soo gooy wana sax ku dhalay inta leedahay waa basaasiin wixii wada ka saaray ma sheegtid waxaan faris baan noqotay maanta wixii ka dambeeyay dhusra ma joojin ninkii waa aamus marka soo dhaqaaqnay marka rabay wax ka sheegaa ma jirteen waxay oran jireen war inta deeq soo jeeda inuu bajarta ka xabadhe إلى أن رجعت وقلي مرك عجيب وحها يعني سمعنا أن مرك أحمد إن مجرد فوكس دول واحد بشدة دعاية حق اللي بالهيد بربقاد مشين حق اللي بالهيد حق فوكس واحد صارتي مجرد كده كسر جد سو وكرسي دور وكنساس واساس وحسي أبورتي دول سي أوكوبت معارض ماذا يا وين كلام بوك فشل معي سرقي شنو يكون جيران لكن سو حي كوكوبتي فين بوكوبتي كسو السعادة يعني إساقة لبضة كوجر حاجة توي توكل توكتي بس أنا أنت كلام حي هاين مجرتين على لوجو كوابي نسيب وناك مركا هرجسان سيد كنت جناي واسكال قايمناي لبا ميل بدكتي أنا جايو نحر هودل بانود دقناي سعيدار أنا ويجي أول كنا جهاري جرو نجهاري بانود هرجسا لبا جارها الرعدو حرف عم بجهده المركا بورم عد بوجوكتي هرجسا تاجشون بوجوكتي نمكن الدل جري بوجوكي رجبنا بوجوكي halkaas aan xarka raacnay nin baan ugu daray askari waxa inuu nakaxeeyo oo boorame ama nageeyo ama sukadeeda naga leexsho oo barre nageeyo nagaarsiyo ninkii xogaa midha fasaxana ma haysan uu baqay boorame nageeyo laakiin xar oo dusha saaran uu shirkan ku jiray buu u tilmaamay halkaas ka baxay halkaas maraysaan boorta dhinacaas ka maraysaan halka xiradaas ku taal halka ka mara guriga dhinaca ka mara halka ka baxa marka boorame tagnay waxaan ku beeganay riwaayad ka horeysay xuriyo baa habeen kala dhigay ninkii reer garow ah markaa oo ciidamada ah bajada halka wakiil uga ah ninkii baan gurigiisa ugu dajay Cabdisalaam baa yiraahdaa waa nin reer maxaa garow ah ninkii gurigiisa wuxuu yiri way dhageysta ama riwaayada gala oo marka ma askartu ronda jirta habeenkii marka askartu riwaayada iyada soo gasho baxsada ama inta maqrib ku dhicin oo roodadu soo xirada ka imaan baxsada adigu gabal dhici baan marka qorraxdu dhacaysay baan in harka lugeynay boorame waxaan soo surwaal iyo shaar iyo go baan ka wasitaa sidaan ku lugeynay rondadii oo magaalada socota baan raafsay waxaan iska dhignay niman meesha iska leersi tagay dadna waa gudubnay oo baraagteeda meel abaan seexan habeenkii subaxdii baan xabashidii ku abrisanay jawad marka oo barre wuxuu ku lahayd xafiis
aan dadweynaha degan magaalada ogeyn xafiiska baan markaas subaxdiina qaabilay waana hubiyey waana la gartay markaasaanu meeshii fadhiisanay meeshaas waxay meesha dadka isugu keeno 15 casho mar baa gaari ka yimaada jigjiga yimaada oo qaada waxaan isku soo gaaray rag kale oo yimaadeen wada soconay aduu 18 qof oo saddexdii la fool ka baxdaan ku jiro aniga iyo maxamed Shaaxamid iyo Alto maxamed Ali Xasan Alto baan kada abshir muuse baan ugu Allah naxariiste abshir muuse wuxuu yiri saddex jaamiciintana ma wada jigjigaana la geeyay jigjiga waxay saddex jaamiciinta dib loo gudbiyo ragga kaltana xirata barka oo jinacsanay waa in muxuu ahaa la geeyo sidoo markaa darba ku aadnay soo soo cesho waxa la yiri waxa ku biirtaan ciidamada jooga jinacsanay qaybta lixaad baa la oran jiray qaybtaan ku biiray oo halkaas maxamed Shaaxamid wuxuu noqday Alto wuxuu noqday saadka anigu waxaan hayay maaliyaddan u hayay ku-xigeenka oo ahaa maxamed Shaaxamidna xiriirka dadweynaha oo bartiis baa lagu ceshay oo halka dadka soo galay suu maartay oo la socdo oo halkaas iyo wixii mashruuc la gelinayo brochures dowladda la gelinayo wadanka in halka ka gudbiyo baa loo xilsaaray halkaas soo joogay saasaan jawadi ka mid noqonay jawadi aanu markaan noqonay muddo waxaanu hayn qaybtaas ka tirsanayn dadna waxaan 8 November baa waxaan noqday xubin ka mid ah guddiga fulinta iyo golaha dhexe labadaba waxa laga dhaxeeyay maaliyadda yaa la magacaabay 83 dhamaadkeedii 84 iyo 85 lixdeedii bil hore waxaan ahaa xogaha maaliyadda jahada dadna tii jahada xarigeedii iyo waxyaabihii yimaadeen iska soo tabar yaraysay saasaan markaas muxuu ahaa 19 cala kulli xaal baan ka soo noqday halka inta la gaarin 88 June ma filayaa inay soo keen dameysay Bernabe iyadoo marka dagaalkii waqooyigana marka uu bilowday waxa ugu horeeyay soo galeen siyaad bare marka ugu horeysay oo sabab yimi anaga markaas anaga laga soo raafay qolihii idaacadda aan ahayn Bernabe markaa nimeeyo markaasna waxbarashada sugay marka maanta baastoolada iyo xaraashtay bay ahayd baxay kamaya sidii sawirku ahaa aduna xaq xafadii ninkii oranjiray Cabdiraxmaan Shaaxamid aan deganayn 150 ما في لا برينا كربحنا يدور روح يتمعضاني كربحنا كسيج المري مركز waxay mid xaal ku soo xumaanayay jamhaduna ay waji adag bay galeysay Soomaaliya waa sii qarxaysay 19 kiiba soo laabatay markii dowladii ay burburtay ay dhacday xal isku daasay haye waxa ku soo laabatay gobolada waqooyi bari maxaa dhacay runtii jabadu iyo soo tabareeysay dad badan naga soo noqday wadanka ka soo noqday laakiin waa iska adkays waxaan siri way qofkii soo gala idaacadda Muqdisho iyo Hargeysa ama adiga kugu xumaynayeen ama reeraan ugu dagaalamayeen ama hab jecel hanacayeen qofka soo noqday qofkii soo noqday waa la caayay waxa oran jireen waa la wareysan jiray waxa la jiray daba dhilif kabaleef hebel maxaa wataad wadanka ka baxday maxaa ku soo celiyay marka intii mid saalgo oran lahaa hada ma goost hada markii daba jabadii ay iska sheegday ma 19 October baa ka soo tagay Dirnabe